السلام عليكم غير شرفت لكم soo dhawaada kulali TV halka waxaan kugu soo gudbinaynaa habab ama farsamooyin haddaad isticmaasho qofka kugu jeclaanayo si degdeg ah haddii aad wiil tahay ama gabar tahay farsamooyinkan way ku furiyiin waana isticmaali kartaa dadka badanaa waxay aaminsan yihiin in jacaylku yahay wax iska dhaca oo qofna jacaylka laga kasban karin si kastaba ha ahaatee jacaylka iyo naceebka waa waxaad adigu ku beeri karto qofka ficiladaada ayaana ka mas'uula in qofku ku jeclaado ama ku naco jacaylku wuxuu la mid yahay dareen kasta oo aad dareento sida fikirka iyo walwalka waana la xadidi karaa si la mid ah sida loo xadido walwalka iyo fikirka dheeraadka ah waxaa jira habab aad qofka jacayl ugu beeri karto balse xogtan aan kuu soo gudbinayna ma ahan mid boqolkiiba boqol aad ku guulaysan karto laakiin si fursadda jacaylka aad ugu beeri karto qof aad bay u sarreysaa haddaad raacdo tilmaamaha aan kuu sheegi doono kow isku day inaad buuxiso baahida qofka marka ay dadku raadinayaan lamaano cusub waxay si indho la'aan ah u raadiyaan qof leh sifooyinka iyo dabeecadaha ay iyagu leeyihiin tusaale ahaan haddii qofku yahay qof caqli badan balse kalsooni diri zaa'id ah hayso qofkaas wuxuu raadinayaa qof caqli badan iskuna kalsoon haddii qofkan yahay qofka aad raadinayso waa muhiim inaad iska dhigto qof aad isku kalsoon sababtoo ah waxaad qofka ka qabtiraysaa wuxuu u baahnaa waxaana maskaxiisa u diraysaa fariin ah waxaan ahay kaad u baahneed intaa waxa dheer isku daygaaga ugu fiican samee inaad qofka tusto sifooyin iyo dabeecado aad iskaga mid tihiin iyo waxyaabo aad wada xiisaysaan shuruudda labaad iska dhigo qof ay ka muuqdaan shuruudaha uu qofku wax ku doorto qof kasta oo naga mid ah waxaa maskaxdiisa ku jira shuruudo uu ka raadiyo qofka ka hor inta uusan jeclaan inkastoo inaad shuruudahan wada buuxisay aysan kuu damaanad qaadayn in qofkaas ku jeclaado haddana in mid ka mid ah shuruudaha lagaa waayo waa in fursadda lagugu jeclaan karo ay aad u yar tahay tusaale shuruudaha waxaa ka mid noqon kara qofka waa inuu noqdo qof aan balwad lahayn waa inuu noqdo qof diin leh waa inuu noqdo aqoonyahan iyo wixii la mid ah inta aadan qofka jacaylkaaga u sheegin isku day inaad ogaato waxyaabaha qofku jecel yahay iyo waxyaabaha uu xiseeyo intaas marka aad ogaato isku day inaad shuruudahaas buuxiso haddii aadan sidaas samayn waxaa laga yaabaa in laga aqbali waayo jacaylkaaga shuruudda saddexaad tus qofka inaadan la mid ahayn qofkii xiriirka hore ugula dhaxeeyey haddii qofka hore xiriir ula lahaa qof kaleeto oo xiriirkaas si xun ku dhammaaday waxaa macquula inuu wax ka beddelo shuruudaha uu ku dooranayo qofka uu rabo inuu xiriir cusub la sameeyo asagoo xasuusan qofkii hore wuxuu ku sameeyey markaad qofka tusto inaadan la mid ahayn qofkii xumaa ee xiriirka uu la lahaa waa fursad weyn oo qofka kugu jeclaan karo shuruudda afaraad kor u qaad qiimahaaga haddii ay jiraan saaxiibo aad labadiinnu wadaagtaan waxaad tahay qof aad u nasiib badan sababtoo ah waxaad qofka ku kasban kartaa si fudud saaxiibada aad wadaagtaan inta badan ee wanaaggaaga ay kaga hadlaan qofka hortiisa waxay badinaysaa fursadda aad ku qabsan karto qofka maskaxdiisa ee aad qalbigiisa boos ugu yeelanayso sababtoo ah qofku wuxuu u malaynayaa inaad tahay qof aad u qiimo badan markuu arko dadka kaleeto aad kuu qiimaynayo arrinkaana waa inay kugu garab siiyaan saaxiibada hana ahaato qorshe aad soo diyaarisay shuruudda shanaad badanaa hal lagu arko waxaa la ogaaday in dadku badanaa qofka xiriirka ay la samaynayaan ay u doortaan midka ay maalin walba arkaan haddii aan muddo dheer lagu arkin badanaa waa lagu hilmaami karaa sidaas laajligeed qofku ogolow inuu in badan ku arko si aad maskaxdiisa u qabsato shuruudda lixaad dhoola caddaynta waxaa la ogaaday in raggu aad uga helaan hablaha dhoola caddeeya ee furfuran markii la barbar dhigo kuwa aan dhoola caddayn ee xirxiran dhinaca kale waxaa la ogaaday in dumarku aad uga helaan ragga aan dhoola caddayn badanaa marka la barbar dhigo kuwa dhoola caddeeya ee qosolka badan sidaa la ajligeed dhoola caddeeya haddii aad gabar tahay haddii aad wiil tahayna wax yar dhoola cadday shuruudda toddobaad adigaan gaar ku ahay tus qofka aad rabta inay jiraan dad badan oo adigana ku doonaya balse asagu yahay kan aad dooratay ee dadka oo dhan aad ka doorbiday fadlan si qaldan ha u isticmaalin farsamooyinkan aan kuu sheegay kaliya waa inaad u isticmaasho haddii xiriirku yahay xiriir guur hana u isticmaalin inaad ku dhaawacdo qof kale dareenkiisa adigoo isleh bal tijaabi inay dhab tahay in kaleeto غير شرفت له haddii aad muuqaalkan ka hesheen sii share gareeya videogana like saara channelkana subscribe dhaha si aad ula socotaan muuqaalada dambe ee aan soo wadno waana mahadsantihiin wabillahi tawfiiq